waayo hadda waxa iska badan buuq taagan oo qafuuleeya waan talinayaa midina ila talin mays marka islaamku muxuu tala iyo tilmaan iyo toosin sidee buu cabiray ama u sheegay ama aadaab muxuu dhigay ugu horeyn qofku marka uu dadka la talinayo waxa haboon ama culimaha hada ama aqil ikhlaas inuu yahay ikhlaas taladiisu ay ku salaysantahay niyad samaan iyo daacadnimo oo wixii uu sheegay ilaahay daraadii ula jeedo waayo xaq ay isku leeyihiin way dadka muslimiintu inay istoosiyaan oo isla taliyaan rasuulada ilaahay wuxuu quraanku ka sheegay mid waliba waxa uu leeyahay wa ana lakum naasihun amiin anu waxaan ahay mid idin danaynaya oo amaanana leh khiyaamo uma jeedo kelmadda qofku uu sheegaya nasiixadaba markay ka tahay dadka way saamaysaa way u soo joogsadaan waxay arkaan inaan waxba uga jeedin marka qabuulkeeda dhawaada wahiya kalimatun hayya min qalbin hayy tu'athiru qulub marka waa kelmad qalbi nool ka soo baxayso dadka saameynaysa sidoo ilaahay bay yiri inma yataqabbalu Allahu min almuttaqiin arinta balabaad waxa way at-ta'akkud min sihhati al-amr al-mansuh bih wixii dadka lagala talinayaa wax jireen u yahay oo xaqiiqo ah oo sugan